السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waxaan ku qaadan doonaa muuqaalkeenii labaad ee taxanayaasheenii soddonka muuqaal ahaa ee labada bilood ee sanadka ka hadhay. Marka maanta waxaanu qaadan doonaa muuqaalkeenii labaad. Halkan waxaanu ku qaadan doonaa complete guide oo Adobe Illustrator ah. Marka waynu isku dhex wadi doonaa labada software oo maalinba mid baynu qaadan doonaa si ay mar inooga wada dhamaadaan qofkii oo si fiican fahansan oo qofka muxuu ahay Photoshopka hore u daawadayna uu kan u daawado Illustrator-ka hore u daawadayna Photoshop u daawado oo ay u wada socdaan insha Allah. Marka maanta waxaan ku qaadaynaa complete guide oo Adobe Photoshop aynu qaadan doonaa. Marka mar walba haddii aad aragtay software-rada Adobe Creative Cloud interface-kooda hore uu siman yahay. Iminka haddii aad aragtay Photoshop waxaanu kusoo aragnay new file, open iyo home. Saddexdii unbaa halkan inoogu yaala. Laakiin waxaa laga yaabaa setting yar inay ku kala duwanaadaan oo aan waxba ahayn. New file baynu ka bilaabi doonaa marka horeysa. intaan casharka bilaabin haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar ama aad Facebook nagala socoto follow saar muuqaalkan like saar sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan iyaguna oo ay u daawadaan casharada insha Allah. Marka waxaanu ka bilaabi doonaa new file markaynu click nidhaahno waxa inoo soo bixi doonta isla panelkii Photoshopka inoo soo baxay oo noociisii ah oo isku style yihiin oo aanay waxba ku kala duwanayn. Iminka haddii halkan ku arkayso waxa inoogu taala recents oo halkan waxa inoogu yaala recent sizes ama sizeski u dambeeyay isticmaalay. Halkan waxa inoogu taala saved key oo ah wixii size aynu save garaysanay. Halkan waxa inoogu yaala mobile key, halkan waxa inoogu yaala web key, printing key. Waxyaabahan waxaan idin soo wada sheegay waa wada size gebigoodu waa sizes kala duwan oo magacyo kala leh oo default sizes kii imika letterkaas A4ta. Halkan webka waxa ku yaala haddii aad arki karto common, web large, web minimum. waxa ku yaala waa sizes MacBook Pro 18 Retina ayaa kugu taala. Marka screen size ayaa kugu yaala oo la doonayay marka haddii aad u baahato sizeskaas inaad isticmaali karto. Recent haddaan ku soo noqono halkan waxa inoogu yaala preset detailskii aynu Photoshop ku soo aragnay oo kale. Halkan waxaanu ku qoraynaa magaca, halkan waxaan gelinaynaa size-ka. haddii aad arki karto halkan markaynu soo furno waxa inoogu yaala iyaguna measurementskii oo aynu keeni doono isticmaali karno. Halkan waxa inoogu yaala orientation key. halka wax ee soo kordhay waxa weeyaan Adobe Illustrator horta halkan markay noqoto preset detailka waa artboardska number of artboardska. Photoshopka haddaad ogeyd halka artboardska waxba kama bedeli kartid ama 3 xabo ama 4 artboard kama dhigi kartid. laakiin Adobe Illustrator waxaad isticmaali kartaa xitaa 100 artboard inaad gashato oo size-ka imika aan geliyay ah. marka maxay soo furayaa 100 xabo oo size-ka aan meesha geliyay ayuu soo furayaa. marka number of artboardska ayaad xukumi kartaa Adobe Illustrator 2 3 1 kolba ka doonayso. halkan waxa kugu yaala bleed baa kugu yaala. bleedka marka waxa loo isticmaalaa wixii la daabacayo oo waxa weeyaan in yar buu ka jaraya oo uu ku oranayo qoraalku yaanu ka gaadhin waayo hadhow marka la daabaco way go'i doontaa ama waxa ku dhici doonta ka tartaa ku dhici doonta ayuu ku oranayaa. halkan waxa inoogu yaala advanced mode ka haddii aynu soo furno wuxuu inoo soo furaya waxa weeyaan waa bleedkii iyo wuxuu naga soo xidhay advanced mode-kii. markii hore ayuu inoo furnaa. advanced mode-ka haddii aynu furno waxaad arkaysaa halkan waxa inoogu yaala waa color mode-kii, halkanna waa raster effect-kii ama resolution-kii, halkanna waxa kugu taala preview mode-kii. halkan marka color mode-ka waxa inoogu jira labadii aynu nidhi markii hore main bay ahaayeen. halkii Photoshop markii hore maxaa la socday grayscale iyo color kale ayaa la socday, bitmap kale ayaa la socday. halkan laakiin waa labadoodii waa RGB iyo CMYK. marka labada color kolba kii aad isticmaalayso ayuun baad dooranaysaa oo wax dhibaato kuma jiro. halkan waa resolution-kii waa 300 ppi, halkan waa medium oo waa 150 ppi. marka waad bedbedelan kartaa haddii aad doonto. more settings haddii aad taabato wuxuu ku soo furaya waxa weeyaan in uu isla preset detailkii uu kugu soo laba celiyo isagoo wax muhiim ah oo kale aan kugu soo kordhin. haddii aad arkayso halka waynu soo aragnay custom-ka oo waa waxa weeyaan haddii aad arki karto waa qaybaha sare ee setting-ka inoo ah ayaa halkan list laga dhigay. halkan haddii aad arki karto waxa weeyaan waa size-kii oo waxa weeyaan letterskii baad dooran kartaa. A4 A5 waa recentska intii ku taalay. halkan cabiradii baad gashan kartaa, halkan orientation-kii baad ka sixi kartaa, halkan bleed-kii baa kugu yaala, halka RGB-gii iyo waxyaabihii kale kugu yaala. marka waa isla intii oo pop-up yar lagaaga sameeyay more setting-ku wax kale oo gudaha ugu sii jira ma jiro. marka maxaynu sameynaynaa waxaanu leenahay create baynu odhanaynaa. create markaan nidhaahno gudaha ayaa layna keenayaa Adobe Illustrator. Adobe Illustrator haddii aad arkayso setting-keedu waxba kagama duwana Adobe Photoshop. Adobe Creative Cloud systemyadu si isu raacsan ama
si isu raacsan yihiin softwaradu ayay isugu egyihiin. Iminka halka waxaa inoogu yaalla toolbarkini haddii aad arki karto oon marna leadka ka dhigan karno marna labada lead aynu ka dhigan karno. Halkan toolbarki baa inoogu yaalla. Xaggan sarena waxaa inoogu yaalla waxa weeyaan waa tabskii sida file, edit, object type, select, effect waxyaabahaas kuugu yaalla. Marka u horeysa Adobe Illustrator soo gasho isticmaalkeeda waxay kaa tahay haddii aan Windows tago oo workspace tago marka u horeysa saasay kaa tahay. Marka maxaad arkaysaa wax sitini kuma muuqdo ama wax options kuma. Haddaan iminka soo qaato kan rectangular kan halkaa dhigo waxaad arkaysaa wax sitini iima muuqanayo oo iima soo baxaya xaggan sare. Laakiin haddii aad doonayso inaad si sax ah ka dhigato waxaad samaynaysaa Windows baad tagaysaa kadib workspace baad tagaysaa waxaad tagaysaa Essentials Classic. Essentials Classic markaad tagto waxa kuu soo baxaya sitini baa xaggan sare kaaga soo baxaya iyo options. Haddii aan iminka rectangular doorto sida ay dhahdo waxaad arkaysaa rectangularka sittinkeedii ayaa ii soo baxay oo xaggan kaaga soo baxaya oo editing aad kaga samayn karto xagga kaaga soo baxaya. Xaggan waxay inoogu yaalla iyaguna panelskii oo layers hadday noqoto halkana properties halkana libraries bay inoogu yaalla. Xaggan iyagoo waxay inoogu yaalla laaban oo waa isla panelskii oo halka aad arki karto waa colorkii halkan waa swatcheskii iyo color guidekii halkan ay swatcheskii baan u jeedaa halkan waa halkaas waa brusheskii halkan waa isla brusheskii oo sampleskii weeyaan halkaas waa strokeskii gradient-kii halkanna waxa kugu yaalla panels xaggana saddexda panel baa kaaga muuqda oo waxayo halkan badanka waxaad isticmaalaysaa layers marka layers waa inay intaa ku haystaan haddii layeradu fara badan yihiin si aad u arki karto gebi ahaantoodaba weeyaan qaabkaas weeyaan. Halkan maxaa inoogu yaalla waxaan toolska gebi ahaantoodba hadhow markaan isticmaalayno ayaynu ku dhex sharixi doonaaye. Halkan waxaa inoogu yaalla move toolkii halkan waxaa inoogu yaalla direct selection tool iyo group selection tool oo iyaguna selection ah. Halkan waxaa inoogu yaalla magic selection toolkii halkan waxaa inoogu yaalla lasso selection toolkii baa inoogu yaalla oo aad isticmaali karto. Marka muxuu ku fiican yahay Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator iyo waxyaabahan softwareadan waxay ku fiican yihiin waxa weeyaan iminka haddii aad arki karayso isaga is sharaxaya xitaa qaabka usage-ka markaad isticmaalayso qaabka kuugu shaqeynaya ay ku tusaya selective points path segments and objects by drawing freehand shapes. waxa weeyaan si aad shay u select karayso ayaad isticmaalaysaa. xaggan pen toolkii baa kuugu yaalla xaggan waxaa kuugu yaalla curvature toolkii halkan waa text toolkii line toolkii baa halkan kuugu yaalla lineka markaad doonayso inaad line samaysto halkan rectangularkii shaybkii kale ayaa kuugu yaalla oo brush toolkii tuulal fara badan baa halkan ugu yaalla oo aynu hadhow sharixi doonno aynu isticmaali doonno. Marka waxaad samaynaysaa wixii su'aale aad qabto iyo wixii cilada ku haysta waad ii reebi doontaa insha Allah commentiga iyo linkiga Telegramka aan description-ka dhigay waad igu reebi doontaa insha Allah. casharkan iska koobnaan doonaa halkaas inoogu joogi doonaa casharka ku xiga ayaynu detail u sharixi doonaa insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.